waxaa jeclan lahaa haddii aad ku cusubtaa kanaalkan soo dhowow. kanaalkan hadda iyo jeer waxaa kusoo qaadanaa fiidiyoyaal lagu baranayo teknolojiyadda, fiidiyoyaal dhiirigelin sida kuwaan oo kale, iyo fiidiyoyaasha naga soo dalbataan. aad iyo aad waxaa ugu mahadsantihiin sida wanaagsan engagement u sameysaan iyo taageerada aad noo muujisaan. haddii aan lahayd subscribe-ka, like iyo shareta, aad ayay ugu mahadsantihiin. haddii aad ku cusub tahay ha iloowin markas inaad like saarto si ay maaragtay uu fiidiyoga u gaaro dadkii u baahnaa. waxaa wada ogsoonnahay in cilmiga uu yahay awood, ama waxaa soo barnay inuu cilmiga yahay nuur. alcilmu nuurun waljahlu dhulaamun. waxaa xasuustaa iskuulkeenu ku qorna jira alcilmu nuurun waljahlu dhulaamun. asxaabtii la dhigan jirta hadee meeshaan ku jiraan waa idin salaamay. waxaa maaragtay ku barnay in cilmiga uu yahay nuur, uu markaas mugdiga intuu naga saaro oo markaas iftiinna gaarsiinayo. run ahaantii haddaa runta laga sheego aniga maba aaminsanin arrintaas, sababtoo ah cilmiga sidiisaba waa maaragtay information ama macluumaad laisku keenay. ha ahaado cilmiga diiniga ama ha ahaado maadi, waa macluumaad ama information laisku keenay oo maaragtay u baahan markaas in la barto. laakiin wuxuu awood yeeshaa oo maaragtay soo baxdaa powerkiisa marka qofka cilmigaas bartay uu ku dhaqmo. haddii qofkaas cilmiga oo akhristay ama bartay uuna ku dhaqmin, marka waxay noqonaysaa waa iska sidii maaragtay dameer malab ku raran oo kale. waxa uu ka ogyahay ma lahan. waxaa filaa inay maamaha Soomaali jirtay, way iga maqan tahay. haddii aa hayso commentigoos noogu soo qor. waa sida dameer malab ku raran oo kale, qof cilmi leh oo haddana ku dhaqmin. okay, hadda sanadihii ugu dambeeyey ama qarniyadan cusub waxaa soo kordhay teknolojiyadda oo markaas cilmiga meel kasta ayuu yaalaa. haddii aan lahayd Facebook, Instagram, YouTube, meel kasta aad tagtid waa ka heli kartaa. inaad u safartid oo faras ama dameer ama baqal ama wax u qaadat ubaahnid, waa gurigaada adoo jooga aa markaas wax baran kartaa. okay, qodobo dhowr ayaa markaas naga hortaagan in aa cilmiga barno. kow waxay noqon kartaa in aa cilmiga horta marka hore aaminsaneenba inuu cilmiga faa'iido leeyahay. laba, waxaa dhici karta in cilmiga oo maaragtay aana firaaqo u hayn aa ku barano. mid saddexaad waxay noqon kartaa in aana fahmeyn wax laga hadlaya markaas. haddii ahaan lahayd luqadda ku qoran yahay ama sharaxaadda qofka inuu fahmeyna laga yaaba. sidaas darteed uu jaahil ka noqdo waxa markaas cilmiga uu xambaarsan yahay. sidaasna qofka oo meeshiisa ku joogo jaahilnimadiisa. hadda waxaa kaloo jiro dad badan oo cilmi bartay, way barteen laakiin ma ku dhaqmin. ha ahaadaan kuwa siyaasiyiin ama kuwa maaragtay heerar jagooyin fiican ha noqdaan. waxaa arkaysaa qof cilmi soo bartay oo haddana waxaa isdabamaris, corruption iyo maaragtay bulsho iska horkeenis iyo waxyaaba badan dad ku mashquulsan arkaysaa oo lagu leeyahay wuxuu soo bartay. ani ma aaminsana dadkaas inay maaragtay cilmigooda oo maaragtay uu faa'iido u keeno. markaas waxay u adeegsadeen qaabkii ay rabeen. qofkii tuug ahaa hadduu cilmi yeesho, tuugnimadiisa uu maaragtay u adeegsan karaa. cilmiga saxda waxaa la rabaa qofka inuu ceshan karo. mid ka mid a ducooyinkeena waxaa ka mid ah inuu ilaahay waxaa ku duceysanaa ilaahu cilmi naaficna sii. cilmi naafic marka lagu leeyahay waxaa laga wadaa cilmi markaas adiga ku anfacaya, bulshadana markaas aa ugu faa'iideyn karto, oo ay markaas ka nabadgalayaan afkaaga iyo adimahada. laakiin haddii qofka uu ka shaqeynayo maaragtay isdabamaris, corruption iyo lacag badan oo dad loogu soo dhiibay, haddii dadkii loogu soo dhiibay ka baahan yihiin maanta, oo qofkaas lagu leeyahay cilmi uu leeyahay, so waxaa meesha ka qaldan. meesha waxaa nooga soo cad in cilmiga uu awood lahayn ama power lahayn haddii qofka qaatay uusan ku dhaqmeynin, uu markaas ceshan karin. okay, videogan kooban maanta waxaa usoo qaadanay in cilmiga keligiis uu faa'iido lahayn ama awood lahayn haddii aadan ku dhaqmeynin. ku dhaqankana wuxuu noqon karaa mid ku anfacaya adiga iyo bulshadaada. okay, uuna markaas kaa reebayo afkaada iyo adimahaada laga nabadgalayo. markaas ayaa la dhihi karaa cilmiga waa cilmi naafic, ha ahaado maadi ama ha ahaado mid diini ah. okay, videogan kooban maanta kasoo qaadanay knowledge iyo faa'iidada leedahay markii lagu dhaqmo. intaas ay kusoo koobina insha allahu. waxaan idiin soo diyaariyay aniga waa cali maxamed ismaaciil baashi. ha iloobin markasta inaad videogan like saarto si uu gaaro dadkii u baahnaa oo markaas ay kan ka faa'iidaystaan. waa mahadsan tahay. waxaa inoo balan insha allahu video kale.